waxaan codsanaa aniga lacag $52,000 lagu leeyahay xirraa 6 bilood walaalahay marka muxsanaanta ah waxaan ka codsanaa inay iga soo caawiyaan waxaan rabnaa dhammaan dadka ahalka ah ama muxsiniinta ah ama wax haysto meel kasta joogaanba inay horta gabadhan soo caawiyaan walaashana oo wax ay karab istaagaan sida runtii annaga ayaa u yeernay saxaafadda si walaalka wax u gaaraan xalay ay ahayd markii baraha bulshada lagu faafiyay arrinka ku saabsan hooyo Xaawo Cabdullaahi Nuur oo la sheegay in ay muddo bilooyin ku xireen saldhigga booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud qaar ka mid ah warbaahinta ayaa shalay booqatay waxaana ay sheegeen in hooyadan ay ku jirto xaalad adag sidoo kalena lagu yeeshay deyn aad u fara badan oo dadyaw kala duwan ay ku yeesheen waxaana sidoo kale warbaahintu ay tabiyeen in hooyadan ay ku xirneed qol neefdiida oo ka mid ah qolalka saldhigga booliiska degmada Guraceel balse maanta kulan kooban oo ka dhacay saldhigga booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah wargaradka degmada Guraceel oo ay ugu horeeyaan ganacsatada degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud oo ugu horeeyay Saleemaan Maxamed Saalax iyo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada degmada Guraceel iyo aqoon-yahanka degmada oo kulankan ku weheliyay isla markaana soo booqday saldhigga booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud si arrintan ay uga dhiidhiyaan ayay sheegeen inay u diyaarsan yihiin inay muddo 48 saacadood ku bixiyaan deynkan faraha badan ee dad kala duwan ay ku yeesheen hooyo Xaawo Cabdullaahi Nuur oo ah hooyo u rey ah isla markaana ku dhawaad 8 bilood ku xiray saldhigga booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud markii laga soo tago ballanqaadka ay sameeyeen ganacsatada iyo qaybihi kala duwan ee bulshada ee maanta saldhigga booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ku soo booqday hooyo Xaawo Cabdullaahi Nuur waxay dadka kale u direen baaq guud oo ah in muddo 48 saacadood ay kaga soo jawaabaan hadalka ka soo yeeray hooyo Xaawo Cabdullaahi Nuur ee ah in lacag ku dhow $50,000 lagu yeeshay waxaana ay codsadeen in bulshada Soomaaliyeed ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo jawaabaan cabashada hooyo Xaawo Cabdullaahi Nuur oo lacag dhan $52,000 ay ku yeesheen dad kala duwan oo ka mid ah ganacsatada degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ugu nimid madashan saldhigga xafiiskiisa taliyaha saldhigga degmada Guraceel taliya Cismaan xafiiskiisa waxaan isku nimid arrin qabsatay ku dhacday gabar la yiraahdo walaasheena oo la yiraahdo Xaawo Cabdullaahi Nuur arrintaas oo ah deyn gabadha lagu yeeshay qaantaas oo qaan ay aad u culays badan oo ay gabadhu gudi weysay noqotay runtii anagu ka reer Guraceel ahaan warka inta badan waxaan ku soo baraarugnay Facebooka hadda dadku iskama warqabo wadanku waa balaaran yahay dadkii tiradii oo ka batay nin walba hortiisu ordayaa xalay waxaan ku wada baraarugnay gabadha walaasheen ah oo reer Guraceel nala ah oo nala degan oo qaan culays badan lagu yeeshay kadibna aan cabashadeeda ka maqalnay Facebook iyo maartay meediyaha social meediyaha arrintaas aan kuleeshay oo isku nimid saakay anigoo ku hadlaya magaca dadka mas'uuliyiinta ah reer Guraceel ama ganacsatada waxaan u istaagnay gabadhaas qaanteeda sidii aan ku bixay aniga iyo dad kale oo far badan oo walaalaha hadda goobta fadhiya ummadda Soomaaliyeed islaamka ah ee walaalka ah kala soo cimayno waxaan ka codsanaynaa gabadha qaanta lagu leeyahay in loo istaago qaantu waa wax dhib badan waaye waa laga duceystaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxyaalaha uu ka duceysan jiray kamid tahay deyntu oo sunnada ah oo mar walba laga duceysto waad garan kartaan qofku markii qaan lagu leeyahay waa qof daciif ah oo maartay miskiin ah ayuu qofku noqonayaa gabadhan hadii aan faahfaahin yar galo lacagta lagu leeyahay waxay noogu sheegtay lacag 52,000 ah lacagtaasna waxa ku leh 32 qofood gabadhu ganacsatay ahayd waxay ka shaqaysan jirtay suuqyada ariga iyo dibaaxa iyo meelaha gaalkacyo ilaa Boosaaso iyo adigu nawaaxiga Guraceel agagaarkiisa meelaha xoolaha loo dhoofiyo u dhoofin jirtay dhibo badana iska dhici karo oo maartay waxyaalahan xoolaha nool wax dhibaato badana ku timaada gabadha dhibkaas qabsaday anaguna waa uga garaawnay waana la xanuunsanay ummadda Soomaaliyeed marka qaasatan dadka gobolkan Galgaduud la yiraahdo ku nool waxaan ka codsanaynaa qaantaas inay gabadhaas si degdeg ah uga soo bixiyaan waa 52,000
waxaa kaloo jira weliba dad kale oo deymo yaryar lahaa ama deynba lahaa oo aamusay oo xishooday aa jira sida la ii sheegay. waxay tiraahdaa Soomaalidu wax qof dhibaa dad ma dhibaan. marka waxaan codsanaynaa gabadha qayladhaanteedaan saaka iskugu nimid annaguna u istaagaynaa anaa kow ka ah waxbaan ka bixinaya haddii alla yiraahdo laakiin waxa waaye gacmooda bay wax ku gooyaan hal mar haddaan halaan bay ku qaadno waxay ila tahay waxaan isleeyahay 48 saac maaragtay ama qof kaliya naga mid ahaa bixi kara ayadoon qofna lagu dhimin xataa haddii aan maaragtay shalongada isku darno contribution haddaan sameeyno waxa weeye waxaan filayaa in culayskaas gabadha ka qaadmi doono ayadana ajarna aan ilaahay xaqiisa uga heli doono ayadana ay farxad ku seexan doonto. ka raali gelinayaa taliska ciidanka booliska degmada Gurceel xoogaa hadal yar oo maaragtay aan meesha ku haboonayn oo ahaa gabadha inay neefdiid meesha neefdiid waxa la yiraahdaa qolka waxa la yiraahdaa owla sukureso ama booreyda meesha dadku dhahan in lagu xiray hadalkaas ma jirin. gabadha culayska haysta dartiisa ka keenay inay wax ay ku hadashaa aysan kontrolnayn hadalkaas. marka waxaan ka raali gelinaynaa taliska ciidanka booliska nabadgelyada ee degmada Gurceel ugu horeeyo taliya Cismaan Cali yaa oo noo ogolaaday inaan saldhigiisa aan ku soo booqano gabadhan xiran cala amnigeeda. anaga gabadhan xiran xalay waxaan ka aragnay social media iyadoo la wareejinayo asi ahaan aniga waxaan u mid asi hooyo ahaan asi dumar ahaan. marka gabadhan waxay sheegtay lacag in lagu leeyahay $52,000 si loo kala leeyahana ma naqaano laakiin gabadhaas ay u xiran tahay muddo sheegtay 6 bilood ah. waxaan ka codsanayaa dadweynaha iyo waliba jaaliyada u dhalatay degmadan Gurceel anagu waxaan leenahay dad mas'uuliyiin ah waxaan leenahay dad hantiilayaal ah gabadhan in loo soo gargaaro lacagtaasna laga bixiyo. xaw waxay u xiran tahay lacag diin oo lagu leeyahay muddo 6 bilood asay sheegtay inta ay iyadu sheegtay waayo warku kaliya markii laga reebo xaw inaysan ku jirin qolka leeyahay neefdiidka oo ay joogtay qol gaara oo ayada maartay joodarigeedu u yaaleen sida aan xaqiijino markaan saldhiga nimid. intaas waxaan rabnaa culayska jira maadaama qof xaamila ay tahay qaanna lagu leeyahay ka keenay midaas waxaan rabnaa inaan booliska aan ka raali gelino maadaama ehelkeedii aan nahay. waxaan rabaa hal mid baaqina ugu diro dadka walaalaha arintaas way jirtaa dad badan aan iskaga nimid lacagta lagu leeyahay waa 52,000 oo dadkii lahaa maxkamadda ay yimaadeen lacag intaas ka badan oo yar yar oo dad leeyihiin way jirtaa. waxaan ka codsanaynaa marka gabadhu waxyaalaha isaaka ii sheegtay waxa kamid ah markaan u imid qof xaamila waa gareynaysiin haway u baahan tahay wadan roob waaye inay xitaa muddo ay baadiyaha iyo naqa ay soo fiirido aad u rabo lahayd. marka waxaan codsanaa 48 saacadood tolnimo jirta gabadhaas in lacagta iyo xaqi aan bixino akoon number oo waxa jira ayadu ay leedahay guddiganaguna aan rabnay inaan lacagta ku aruurino. waxaan rabnaa akoonkaas iyaduna way sheegay annaguna waa sheegnay lacagta lagu leeyahana waa 52 akoonku waa 35 24 85 72 xaawa Cabdulaahi Nuur aan ku qoran. hooyo xaawa Cabdulaahi Nuur marka koobaad waxay raali gelin ka bixisay hadalkii ahaa in ay ku xireed qol neefdiida waxaana ay sheegtay in qol qalabkiisu uu dhameystiran yahay ay ku xireed isla markaana raaxa midda ugu fiican ay halkaas ku haysatay marka laga reebo inaysan xorriyad haysan oo aysan saldhiga ka bixi karin maadaama horay maxkamad ay u xukuntay isla markaana dad deyn ku lahaa ay soo dacweysteen. anigoo ah xaawa Cabdulaahi Nuur saldhiga hadda wax aniga dhibaato aan kala kulmo ma jirin walaalahay joogay dad ehelha joogay wax hadda dhibaho aan kala kulmo ma jirin kaliya neefdiidka waxa iga keenay maadaama aan muddo badan xirnaa 6 bilood xiraa oo qof xooga iska xanuunsanaha waxa iga keenay hadda marka waan fiicanahay alxamdulillah wax hadda dhibaho aan ku qabo mara dad ehela walaala taliyaasha waxa dhan dad waxay ahaayeen macquul oo dad fiican ah dad uma soo gaan hadda qol nadiif ah joogay culayskaas macnaha muddada badan haystay iyo fikirkaas barbaleenkaas tirada badan baa iga keenay haddana taliyaasha taliya ku-xigeenka kurtood uga mahadcelinay raalliha ka ahaadeen. waxaan codsanaa aniga lacag $52,000 lagu leeyahay u xiraa 6 bilood walaalahay marka muxsiniinta ah waxaan ka codsanaa inay iga soo caawiyaan.
akoonkayguna waa 35 24 85 72 xaawo cabdullaahi nuur ku qoran. ugu dambeyn taliyaha saldhigga booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud gaashaanle Cusmaan Cali Huday oo warbaahinta la hadlay ayaa marka koobaad waxa uu sheegay in gabi ahaanba wax kama jiraan ay tahay inay hooyo xaawo cabdullaahi nuur ku xireed qol neefdiida isagoo intaas ku daray in markii laga reebo in aysan saldhigga ka bixi karin ay haysatay raaxo midda ugu wanaagsan waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay mar walba ku dadaalaan sidii hooyadan ureyda ah ay jawi wanaagsan ugu jiri lahayd isla markaana aysan wax dhibaato kala kulmin qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta saldhigga booliiska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud wuxuu u mahad celiyay dadka hooyadan soo garab istaagay oo ganacsatada degmada ay qayb ka yihiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu dambeyn wuxuu sheegay in hooyadan la soo garab istaago maadaama lacag aad u badan oo gaaraysa $250,000 lagu yeeshay gabadha lagu magacaabo walaashana xaawo cabdullaahi nuur waxaan rabaa halkan warbixinteeda oo xalay iyo social media aad loo soo dhigay horta marka hore anaga ka booliis ahaan waxaan rabaa waxaan nahay booliisne wuxuu u shaqeeyaa bulshada u shaqeeyaa waxaa la rabaa booliisku maadaama bulshada u shaqeeyo inuu damqado oo dumarka iyo maaragtay dadka amniga iyo nabadgelyada ka shaqeeya qofka dhibaatadiisa wixii dhibaato qofka ku ahna waxyaabo dhinac walba ha ahaatee uu ka hortagaa qof walba inay si nabadgelyo iyo si wanaagsan ay ku noolaato ayaa booliisku ka shaqeeyaan waliba qofka xiran oo saldhigga ku xiran xuquuq uu leeyahay in la ilaaliyo ay muhiim tahay siiba dumarka waxa booliisku uusan maaragtay sharcigiisu waxyaabo badan uusan ogoleynaa jiro damiir ahaan iyo naf ahaan ayna ogoleyn shariicada islaamku sharciga booliiskuna uusan dhigaynin qof dumar ah oo uur leh xaamilo ah in xabsi la geliyo ama neeftiid la geliyo wax xaraam ah waaye waxaan kara weynina ma ahan oo waxaan nahay dad garan kara xuquuqda qofka dumarka ah ee uurka leh uu leeyahay wuxuu qofka dumarka u baahan yahay markuu uur leeyahay in barbalamka laga ilaaliyo mashquulaadka laga ilaaliyo meelaha kulaylka ama dhibaatada ah laga ilaaliyo hadalada maaragtay adag laga ilaaliyo la ixtiraamo intaas uu mudan yahay intiina gabadha walaashayna waa la marinay oo waa waajibna saaran inaan marka maaragtay qof walaalaha aan dhibaateynina ma rabin sida runtii mana doonayno mas'uuliyadana inaga saaran dumarka iyo dhammaan bulshada Guraceel ku nool walaashana marka way jirtay lacag loo haystay oo qaan ah oo dad ku sheeganayay inuu maxkamadda u gudbinay maxkamadda markii loo gudbiyana waxa lagu soo xukumay lacag $52,000 ah iyadaas ayayna u joogtay saldhigga dhexdiisa waxaan u diyaarinay qol muraaxad leh taaqada leh oo deganeed oon ugu talagalnay inay halkaa joogto inta maaragtay ahladii qaanta ka bixinayso inta kadib waxaan rabnaa dhammaan dadka ahalka ah ama muxsiniinta ah ama wax haysto meel kasta joogaanba inay horta gabadha soo caawiyaan walaashana oo wax ay karab istaagaan sida runtii annaga ayaa u yeernay saxaafadda si walaalka wax u gaaraan annagu markaan u yeernana hadii wariyaasha aan u yeernay waxaan dhahnay gabadha baahideeda iyo arrimaheeda siday dadka walaalka muxsiniinta wax u gudbisineed kala shaqeeya waa laga yaabaa marka wariyaasha inay waxyaabo ku tareen ay film sameeyeen waa laga yaabaa sida runtii annagu markii maba aanan ku magaciisiyeenin oo waxaan rabnay inay gabadhu ay dadka wax weydiisato wariyaha ayadana isku daynay wariyuhu nalama maamulo saldhigga nalama maamulo anaga waan annay waxaan doonaynay in gabadhaas walaashana ah ay hesho walaal taakuleeyo oo karab istaago oo hadii qaantaan ka qayb qaato annaga ruuxana booliis aan waxaan diyaar u nahay hadii aan helno ahal iyo walaal dhammaan Soomaali dad muxsiniina anagu islaamna waa ka qayb qaadanayna hadii Allah idmo waxaan rabaa marka barnaamijka la mariyay social media barnaamij baan abuur ah way jirtaa gabadhu inay magaciisiinayso laakiin si barnaamij la badiyo sidii loogu talagalay iyo qolkii ay ku jirtay qol aan ahayn laga sameeyay waxyaabo sidaas waaye marka anagu waxaan rabnaa hadii Allah idmo inaan ku soo kaabiyo qof walba oo islaam walaala inuu gabadhaas walaashana soo taakuleeyo hadii Allah idmo diyaarna waxaan u nahay insha Allah inaan
حتى ما تابع أي قف حاملة أي هاد عافمات كده وان كورقمنا حتى هو باهن تهي waxaan sameynaa baabuur aan seenayna hawada waan soo seenayna horena waa u siinayna waynu ogtahay walaashana